bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa reediyo kulmiye kusoo dhawaada qodobada wararkaan idin hayna maanta kuwooda ugu waaweyn. maamulka koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ku toogtay 2 nin oo wiilal yar shalay ku kufsaday magaaladaasi. maxaa laga filan karaa shirka dhuusamareeb 3 oo ay ka qaybgalkiisa diidan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland warbixin ayaa idinkaga haynaa. ciidamada booliska magaalada Jowhar oo gacanta ku dhigay xubno lagu eedeynayo dilkii wasiirka beeraha Hirshabeelle. idaacadda kulmiye iyo xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo iska kaashanaya baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada ee xaaladda dalka hadda u marayo. dadka ku nool xaafado kamida magaalada Beledweyne oo bilaabay inay guryahooda ka barakacaan. General Khalifa Haftar oo Liibiya ka dagaalamo oo sheegay in ciidamo Soomaali ah oo lagu tababaray dalka Qatar ay ka dagaalamayaan dalka Liibiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo xilalkii ka qaaday wasiiro badan oo ay ku jiraan kuwa ay aad isugu dhawaayeen xilli dalkaasi mar kale ay ka bilowdeen dibadbaxyo waaweyn. iyo xiisadaha u dhaxeeya Yuhuudda iyo dagaalyahanada reer Falastiin ee Xamaas oo sii xoogaystay. markale ismaqal wanaagsan dhageystayaal oo duurnimo talaada taariikhda waxa ay ku asteeysan tahay 18 bishii 8 sanadka 2020 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminka u diyaar garoobay isagii oo dhan wadajir waxa idinku soo jeedinaya anigoo Maryam Maxudiin Gacal iyo Burhaan Diini Faarax war soo saaraheenuna waa Axmed Saciid Axmed. aynu ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta lagu toogtay 2 nin oo la sheegay inay faraxumeeyeen ama ay kufsadeen 2 wiil oo yaryar dhacdadaas oo shalay ka dhacday magaalada Baydhabo. labada wiil ee la faraxumeeyay ayaa la tilmaamay in midkood uu geeriyooday halka midka kalena la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. ragga falkan geystay ayaa lagu sheegay in mid kamid ah uu ka tirsanaa militariga Soomaaliya qaybtiisa 6aad halka midka kalena lagu sheegay inuu ahaa qof shacab ah oo ku nool magaalada Baydhabo. arrintan ayaa waxa ay ka yaabisay dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Baydhabo jooga isla markaana arrintan aad uga hadalhayay waxaana go'aanka lagu toogtay gaari guddiga amniga ee Koonfur Galbeed. sidaan oo kale waxaa magaalada Baydhabo bilo ka hor lagu faraxumeeyay wiil yarkaasi oo falkaasi isbitaal loo dhigay sida la sheegay isla markaana ay cadaalad weli aysan helin. xilli magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug uu ka socdo shirka Dhuusamareeb 3 oo ay ka qaybgalkiisa ay diidan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa warbixintan waxa inooga diyaariyay waryaheena Cabdullaahi Maxamed Cali. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa si rasmi ah uga furmay shirka Dhuusamareeb 3 ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka xubnaha ka ah sida uu xalay sheegay madaxweynaha martida loo yahay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. shirka wajigiisa koowaad waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. balse waxaa kulanka ka maqnaa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo kan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo goobjoog u ahaa labadii shir ee kan ka horeeyay. madaxweyne Qoorqoor ayaa xalay shirkiisa jaraa'id ku sheegay in ay weli sugayaan in shirka ay ka soo qayb galaan labada madaxweyne ee maqan. labada maamul goboleed ee shirka ka maqan ayaa ka soo qaybgalkooda ku xiray shuruudo ay qayb ka tahay in ay shirka goobjoog u noqdaan beesha caalamka si loo helo damaanad qaad ku aadan in la fuliyo waxyaabaha lagu heshiiyo. in labada maamul goboleed ay dalbadaan gacan saddexaad oo shirka goobjoog u noqoto ayuu Dr. Maxamed Axmed ku sheegayaa in ay tahay kalsooni darro ay ku qabaan madaxweynaha. waxaan u macnayn karaa inay jirto kalsooni darro ay ku qabaan madaxweynaha kalsooni darro ay ku qabaan ayaa taala kadib markii Dhuusamareeb 2 laga laabtay falal baa dhacay oo ka mid yahay inuu barnaamijkii la riday beddelaa dhacay waxay ahayd guddiga farsamada oo lagu balansanaa inay Dhuusamareeb ku shiraan inaysan Dhuusamareeb ku shirin madaxweynihii markii hadda uu u soo socdo imaanayay Dhuusamareeb nafteeda inuu baarlamaanka hore u soo maray oo uu u ballan qaaday waxaa meesha soo baxay in ayaga go'aanka kama dambaysta ay leeyihiin waxyaabahaas oo dhan waxay abuuran dareen ah madaxweynaha inuu ciyaarayo farsamooyin uu rabo qaabka asaga uu wax u arko inuu ku socodsiiyo marka arrimahaas oo dhan waxay shaki ku abuurtay madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland ay dareen ku abuurtay. madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor ayaa sheegay in wixii jira madasha lagu dhammayn karo balse fariimaha wada la isku marsiiyo aysan xal u noqonin xaaladda dalka Soomaaliya uu haatan ku sugan yahay. wixii kala duwanaansho ay jirana wada hadal lagu dhammayn karo. sidoo kale Qoorqoor ayaa sheegay in Soomaalida ay weligood ku heshiin jireen waxyaabaha dhexdooda ah si gaar ah arrimaha doorashooyinka isagoon hoosta ka xariiqay in aan loo baahnayn cid kale oo damaanad ka noqoto waxyaabaha lagu heshiinayo. waxaan leenahay muddo Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshiin jirtay waana ka heshiin karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina
nagu dhex jirin amaan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxda Soomaaliyeed waa iska fahmeen Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyey 3na waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu aamada Soomaaliyeed waxaana ku kalsoonahay ka soo baxa Dhuusamareeb 3 inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaa karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa in madaxweyne Qoorqoor uu shirka furo iyadoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada ugu facaweena ayaa qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay ku sheegayaan in laga haboonaa oo uu kaadiyay inta lagu soo qancinayo in ay shirka ka soo qayb galaan sida uu ku doodayo Dr. Xasan Sheekh Cali. Qoorqoor waxaa loo baahnay marka baddaas inuusan gelin oo yiraahdo mudane madaxweyne aniga gobasha Soomaaliyeed waa fidiyo waa taasaa madaxweynayaasha isu keen haddii isu imaan karina waxa ay diidan yihiin ka xaal mari oo adigu Axmed Madoobe doon oo adigu mataqaana Axmed Saciid Dani doon oo dadka isu keen oo waxa lagu haysta ka garbax inuu dhaayay maahane. Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa sidoo kale waxa uu qabaa in wax muuqato aysan ka soo bixi karin shirka Dhuusamareeb 3 haddii aysan ka soo qayb galin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. wax macna leh malaha waxa laga filan karaa Shabeellaha heesa haddaysan Jubbaland iyo Puntland soo qayb galin. Maamulka Galmudug ayaa horey loogu amaanay kaalintooda ku aadan qabashada shir la iskugu keenayo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo muddo aanan kulmin waxaana shacabka reer Galmudug ay taageero muuqato u muujiyeen qabsoomida shirka iyagoona sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in ugu dambeyn ay madaxdu ku heshiin karaan wax u dana guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Cabdullaahi waa maasan tahay magaalada Muqdisho haddaan u soo laabanana goor dhow waxa uu qarax ka dhacay meel u dhow Tarabuunka degmada Hodan ee gobolka Banaadir qaraxan waxaa lala eegtay baa la yiri gaari nooca rasaasta ay karin oo marayay meel u dhow isbitaalka Deefa iyo dugsiga sare Banaadir degmada Hodan xaafadda Taleex gaarigan oo noociisu ahaa nooca rasaasta karin ilaa hadda lama oga cidda wadatay laakiin wararka radio kulmiye helay waxay sheegayaan in laba qof oo rayida oo mooto bajaaj saarnaa ay ku dhaawacmeen wixii faahfaahin dheeraad ah intaan warkeena ku jirno ayaad ku maqli doontaan boggan radiokulmiye.com waan ku qoraynaa isha ku haya sargaalka hubeysan ee dagaalka ka wada wadanka Liibiya ee la dagaalamaya dawladda la aqoonsan yahay dalkaasi ka jirtay Khalifa Haftar la yiraahdo ayaa sheegay in ciidamo Soomaaliya oo lagu tababaray dalka Qatar inay dalkiisa ku sugan yihiin oo ay ka dagaalamayaan waliba wariyaheena Maslax Abuukar Xaaji ayaa isha soo mariyay warkii laga qoray. Axmed Al-Mismaari oo ah afayeenka generaalka falaagoobay ee dagaalada ka wada dalka Liibiya Khalifa Belqaasim Haftar ayaa shaaciyay markii ugu horeysay in ciidamo Soomaaliya lagu soo tababaray ay ka dagaalamayaan qaybo ka mid ah dalka Liibiya gaar ahaan magaalada Misrata isagoona sheegay in ciidankaas ay Soomaaliya ku soo tababartay dawladda Qatar kadibna la keenay gudaha dalka Liibiya dagaalo culusna ay la galeen maleeshiyaadka isaga daacadda la afayeenkan oo cadeemo dheeraad ah aan soo bandhigin ayaa waxa xogtan uu ku shaaciyay isagoo la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ku sugan gudaha dalka Liibiya wuxuuna cadeeyay in Turkiga iyo Qatar ay weli ka shaqeynayaan hagardaameynta dadka reer Liibiya sida uu hadalka u dhigay isagoona sheegay inay sii kordhin doonaan bilaha soo socda ciidamada ay ka keenayaan geeska Afrika oo Soomaaliya ay ugu horeyso oo ay ku horinayaan colaadda ka socota gudaha dalka Liibiya sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidankan ay yihiin ciidamo Soomaali ah oo lagu tababaray xero ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya dawladda Qatar isla markaana ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in lagdanka siyaasadeed ee ka socda gudaha dalka Liibiya ay door wanaagsan ku yeelato dawladdaasi afayeenkan ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in ciidamadan Soomaalida ah oo 300 gaaraya ay hogaaminayaan laba sarkaal oo u dhashay dalka Qatar isla markaana magacyadooda ma uusan soo bandhigin inta badan warbaahinta dalalka qaliijka ayaa aad u qaada dhigaya sheegashada ay mucaaradku sheegteen in ciidamo laga soo daadguriyay geeska Afrika oo Soomaaliya ay qayb ka tahay ay dawladda Qatar keentay gudaha dalka Liibiya ayna kaalin uga qaadanayso dagaalada ka socda gudaha dalkaasi horey siyahayaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu shaaciyay in ciidanka Soomaaliyeed aysan ahayn calooshood u shaqaystayaal la geyn karo goob walba oo ay colaad ka horeyso waxa uu beeniyay warar ay horey u baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta qaliijka
hase ahaatee lama oga sida dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda qatar ay uga falcelin doonaan eedeyntan culus ee mar kale uga timid afhayeenka jenaraal khaliifa haftar oo ah jenaraal iminka dagaalo xoogan ka wada dalka liibiya oo diidan jiritaanka dowladda qaramada midoobay ay aqoonsan tahay ee fadhigeeda uu yahay Tripoli. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa xilalkii ka qaaday wasiiro badan oo ay ku jiraan kuwa ay aad isugu dhawaayeen xilli dalkaasi mar kale ay ka bilowdeen dibadbaxyo waaweyn. maanta waxaa si rasmi ah xilka looga qaaday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa waddanka Itoobiya. amsiido hore waxaan ogaan in waddanka Itoobiya uu ka jiray qalalaase xagga dhinaca siyaasadda ah oo la arkay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu sareysa waddanka iyo sidoo kale qayb ka mid ah xisbiyada mucaaradka ay isxayeen taasoo keentay in ugu dambeyn sidoo kale xariga loo taxaabo xabsiga Jawaar Maxamed iyo mas'uuliyiin ka mid ah dowladda federaalka Itoobiya. waxaana la dareemayay in u dambeeyay Abiy Ahmed iyo sidoo kale markaas ahaayeen dad aad khilaafsan khilaafkaas dheer soo jiitamay ayaa sababay in ugu dambeyn maanta xil laga qaado wasiirkii gaashaandhigga ee Itoobiya lama markaas oo ahaa xubin muhiim ah oo Abiy Ahmed saameyn ku lahaa agtiisa. marka taasi iyadoo xilli waxay kusoo beegmaysaa sidoo kale waddanka ay ka jiraan barnaamijyo waaweyn oo lagu dalbanayo in Jawaar Maxamed lagu sii daayo kaasoo la sheegay in wax soo wajahay iyadoo shalay ilaa maanta la arkayay wadooyinka waaweyn ee deegaanada Oromada oo haweenayo cidla isla markaana la arkayay in ay yaalaan dhagaxaan iyo sidoo kale maamulsaandiiro fara badan iyadoo sidoo kale banaanbaxyada ay hareeyeen inta badan xaafadaha magaalooyinka ee degta Oromada. marka Axmedow waxaa hadda la dareemayaa in qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba uu soo wajahay waddanka Itoobiya. waxaa maanta xilka laga qaaday sidoo kale maayarkii magaalada Addis Ababa kaas oo horey u ahaa nin Abiy Ahmed sidoo kale aad ugu dhawaayeen. isla wasaaraha Itoobiya ayaa hadda soo magacaabay 10kaas boos isagoo oo magacaabay wasiirka gaashaandhigga Dr. Karna Yadeta sidoo kale Gereno Tomatos oo wasiirka xiraalinta loo magacaabay sidoo kale Samuel Herkatu oo wasiirka sayniska iyo culuumta sare loo magacaabay. takalla wasiirkii hore u ahaa takalla ayaa hadda waxaa loo dhiibay sidoo kale yiraahdo Tusfaye Daba sidoo kale ku-xigeenka xiraalinta ayaa loo magacaabay nin la takalluma